soo dhawaad saaxiib yaal habeen wanaagsan. Premier League kulamadii xisaab badna way soo dhamaadeen. Reer Arsenal gambarkii loo dhigtay markan uu u suura galay dhammaan taageerayaasha kooxaha kale xitaa anaga aan ugu horeyn inkastoo Real u tartamoonin. Brighton barbara la galeen gool kaalintooda labaad iyo sii fadhin doonaan kooxda Arsenal iyagoo doonay dhibcaha Liverpool inay soo yareeyaan markan iyaga ayaa waayay xitaa dhibcaha inay qaataan. Rigoor laga dhigay kooxda Arsenal Joe Pedro uu ka dhaliyay ayaana gool Brighton ay ku leeyisheen taa oo ka dhigan Liverpool laba kulan oo harsan tahay ama la dheer yahay in kaalinta koowaad ay kusii fadhin doonto. Reer Arsenal gamarkii Chelsea iyo Manchester iyo kooxihii kale ayaa la jaba markan ugu dambeeyna sidii la rabay ayaa u dhaxday. Marka Arsenal hamigoodii horyaalka sidoo noqon doonaa fikirkiina la wadaagi kartaan. City way soo laabteen kulan labaad ay badiyeen back to back Premier League inay badiyaan 14 kulan maysan helin laakiin way xasuuqeen kooxda West Ham oo noqotay koox la yiraahdo in lagu tartamo goolasha laga dhalin karo koox walbana ay aragtay 5 gool ka dhalinaysa. Baby wiilashiisa sida ay u baashaaleen wana soo dhawaanayaan markan. Chelsea sheekadii ahayd Real marabno xaqiiq ay noqotay markan. Haddii kaftan ay ka dhigayeen laakiin markan run ay noqotay. Real marabno Hotaka ayaa markale kala kulmeen kooxda Crystal Palace. Top 4 kooda ay siiraasan doonaan kooxda Chelsea. Jackson ay joogo meeshaas waa isleeda markuu ciyaarayo hal ilaa ayaa u xiran oo shabaqa meel uu ka jiro ma ogo oo goolal badan iyo fursado badan ka qasaaray kooxdaasi Blueska kaalintooda afraad ka raadsadaan sanadkan. Dacasi kulan ugu xisaab badnaa kulanka ugu adag bari ayaa la daawan doona Liverpool iyo Manchester United. Anaa tala soo jeedin lahaa haddii maqlaayaan Premier League kulanka bari in dib loo dhigo laga dhigo kulamada ugu dambeeya horyaalka si kooxdan isbedel January oo sameeyso laakiin haddii bari sida ay ku soo gasho dhibaato kale ku noqon doonto maadaama xaalad xun ay ku jiraan Liverpool xifaaltan adag oo kala dhaxeeyo adootinimo ay kala dhaxeyso Anfield Stadium kulan ugu dambeysay Manchester hal gool ay ku soo dhalisay inay gool ku dhaliyaan dhibaato ay ku tahay guushii ugu dambeysay ay gaaraana waxay ahayd 2016 ciyaar ama hogaamiye xilligaas oo Luis van Gaal gool u dhaliyay Rooney marka dhibaato badan halkaas ka jirto bari waa la arki doonaa baraf inuu daarajeen aan ciyaartaas lagu kala tago intaan bilaabaninba saadaashina kulankaasi qeybaha kumantii noola wadaaga iyo kulamadii caawa la ciyaaray.